heesta ma la samayn karaa mase qof muslim ah ma qaadi karaa asigoo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله كحرن تيم عمر كيو هبين وناكسن وولالكينا عمر كيو بالفضل waxaan ka codsanayaa videogan haduu ku soo gaaro in ay share gareyso like ta comment inta baa xaga walaalka Khaliyan ku xirneen ama walaasha Khaliyan ku xirneen channelka team Umar Keyo waxa adina ka codsanayaa waxay tahay haduu videoga ku soo gaaro in subscribe ka taawato gambaleerkana aad ku darto saad kaga mid noqoto team Umar Keyo bal insha Allah haduu ilaahay karaan noqdo waxaan jeclahay inaan ka hadlo gabar Soomaaliyeed misna soo qaaday hees oo Hindi ah isla Hindiga waxba isa kama bedelin heeska Hindiga qaabka waqti xaadirka u sameysnaa ay u qaaday Soomaaliland uma qaadin Hindi ahaan ay u qaaday waa gabadha uu qabo boqorka Gambiska gabadha uu qabay kulli qof walba oo isbedel ama dadaal badan uu sameeyay ama hamigiisa wuxuu yahay wax badan inuu isku dayo luqad walba inuu wax ku sameyn karo laakiin haddana waxay tahay waxa qof walba markaas maaragtay fanaanimada masaxiiseena luqad ajnabiga inuu hees ku qaado waxa muhiim ah waxay tahay inaad marka hore aad ka taxdirto maaragtay luqadaad ku qaadis macnaheed tahay erigaad kaga qaadis heestan macnaheed leedahay laakiin adigoon aqoon u leen haddaad ku qaado erigan aqoon u lahayn waxa la yaabaa dhibaato badan inay kaaga imaato bal Soomaaliya waxa mar walba idilaa waxay tahay isku day waxaad mar walba sameeynaysan inay tahay wax markaas adiga aqoon u leedahay haddaad aqoon u leedahay wax walba markaas maaragtay waa hamigeeda ama guusheeda waa gaaraysa laakiin adoo aqoon lahayn waxa laga yaabaa dhibaato badan inay ku keento bal kulli hadal idin kugu daadin video qaybtan horaan oo soo dhigaya ila daawad insha Allah horta gabadhu waa gabar fanaan ah misna fanaanimadeeda ma aragtay qaab ahaantay matalis waqti xaadirka waa qaabka Hindida maartay hees ay ku qaado ilaa Hindida markay hees qaadaysa ayaa waxay yihiin dad markaas suuroona ilaa ayaga waxa lagu yaqaan inay is suureeyaan markay wax walba sameeyaan waa aragtay dad ilinta mar walba ka soo horeysa waa dad fikirkooda marka ma aragto masna lagu dayin kara ma ahan waa dhibaato aad badan ilaa hadana waa dad cawaani u badan yihiin heestada naaxiyaha mas eriyada ee ka sameeysan tahay Soomaaliya bad waxa iskaga qaldana waxay tahay heesta naaxiyada ee ka sameeysan tahay mas miraha ee ka abuuran tahay ilaa naaxiyaha hadaad mar walba tixraacad waxa laga yaabaa eriga markaas ku qaadaysa in adiga xataa isaf laga deenaysid ama waalidka af laga deenaysid mas xataa diintaad waxad gudbaysid oo kale sida hadda heestan caawan ka hadleen oo kaleeto marka waxa mar walba muhiim ah waxay tahay heestada dhageysanaysa yeesan ku qaldin naaxiyaha ee ka sameeysan tahay wax walba waxa muhiim ah waxay tahay inaad aqoon u lahaato oo markaas qaadaysa xataa mas isku dayaysid in wax macquul lahaadaan कुछ पूछा ना कुछ मांगा तूने दिल से दिया सो दिया إن بعد ما هرت قبل عد أهانت وعد نظيف وما أنت ما حلقي كرامارتو إلهي وكم نستطيع عطوة لكن سب دبعتها ما أنت كفيرنا هيستا وحكي لما أهان إن هيس عندك وخاي سماع لكن واحد دبعتها كينا واحد تاي هيستا كل سي هوري لو شرحي واحد دبعت بدن أمام إريا مركز معقول هنا كم أكجرو بالكل وضع أركينا ना कुछ बोला ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया सो दिया तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है dhibaatada horta heesta ka taaganta waa hadda meeshii hadda waqti xaarka heestan ku joojiyay ay dhibaato weyn ka taagan tahay heestan kulli horta aniga Hindi ahaan ma garanayo afka Hindiga misna heesta qaab ahaanteed tahay fasirkeeda ma hayo laakiin qof walba waxba qof kale uu aqoon roon heestan waxa insha Allah dibna uu fasiri doono markuu videoga noo dhamaado qaybta dhexe misna waxa noo fasirayo waxay tahay baaba JK markaas ma aragtay aflaanta Hindiga badii luqadooda si fiican ugu aqoon roon heestan asiga hadda ka hor fasiray gabadhan kulli ma aqaan inay aqoon u leeyahay inaan kala ma garanayo waa boqorka Gambiska xaaskiisa Gabriel Mayo kulli asii magacu markaas ku wici jiray waxay tahay Gabriel Mayo laakiin se wallahi dhibaato badan ay leedahay ilaa waxa mar walba muhiim ah waxay tahay luqadaad wax ku qaadaysid inaa maarta aqoon u lahaato kulli baaba JK aan fasiray heestan bal asii wadana qaybteeda cod ahaantaada mas'uusku day ahaantaada kuma dhigin walaasheeda laakiin waxaan mar walba dhaliil ama daliicana u sameynayna waxay tahay
luqadda waqti xaarka heesta ku qaadaysid nin walaalkaa hore noogu fasiray af Soomaali ahaan noogu dhigay inay dambi weyn leedahay oo markaas noo sheegay laakiinse adiga ahaantaada codkaaga maasha Allah qaabkaad u qaaday heesta codkaaga intaba waa macquul oo nadiif waay laakiinse dhibaatada taagna waxay tahay heesta ma la sameyn karaa ma qof muslim ah ma qaadi karaa asigoo waqti xaarka aqoon u leh mas asigoon aqoon u lahayn ilaa waxa mar walba muhiim ah waxay tahay inaad wax aqoon u lahaato waxaadan aqoon u lahayn dhibaato badan ay leeyihiin waxaad aqoon u leedahay mar walba inaad isku dayo muhiim ah tanna hadda waa dambi weyn ay leedahay soo baabajeeki noo sheegay dambigeed waa mid aan la soo koobi karin runtii balan si aragna gabadh walaashan waxay qaaday सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब थे waxaad horta gabadh walaasheena heesta way ku nasanaysaa oo way ku taagtaagsanaysay dhib malaha se ku taagtaagsasto laakiin waxa mar walba muhiim ah waxay tahay waxa waqti xadarka qaadaysid inay lahaadaan mas wax aqoon ay u lahaatid adina nafsad ahaanta xataa shayad aqoon u leedahay mar walba ku anfacayo walaalahaaga anfacayo ina anaga wax walba isbedel adiga sameynaysa kama soo horjeedno laakiin si luqad ahaanta bal kulay baabajeeki asigana wuxuu ka dhahay heesta balan wada fiirsano en run ahaantii dad badan waxaa jiro heesaha hindiga sida ay yihiin aysan ogeyn iska dhegaysanayaan way iska dhegaysanayaan heesta way la qaadayaan wayna ku badanayaanba balse ma isweydiinay heesaha qaar inayna dambaajinayaan baabajeeki kulay wuxuu ka dhawaajinaa waad maqlaysaan waana ila aragtaan tiimkeeyo waxaa horta mar walba muhiim ah waxay tahay maaragtay waxaad markaas qaadaysid inaa markaa adiga aqoon u leedahay mase adigoo islaam ah waxaan aad sameynaysid ma wax diintaada xadgudub u keeni karaa mase waxaad horumar mas isbedel kaga sameynayso kulay wuxuu noo sii fasiraya heesta aktarka qaada masna filinka ay ku jirto magac ahaanteeda dadkan horta muslim waa la wadayaa laakiin ayadoo muslim la wadayaa ayaa waxaad arkaysaa wadan walba markaad tagto ama dad muslim ay ku nool yihiin qof walba dhaqan uu leeyahay qof muslim waxaad arkaysaa maanta maaragtay naagaha inuu gacanta ku salaamo jecel asigoo markaas maaragtay diinta dhibaatada badan ama halista ay u keeni karto asigoon aqoon u lahayn ayuu haddana muslimnimo soo sheeganayo ayuu haddana wuxuu ogeyn wixii dhabka markaas kaga imaanayo runtii marka mar walba waxaa fiicana waxay tahay markaa wax sameynaysid wax qaadaysid ilaan laguma dayo qofkaas muslim waa sheeruuqa muslim waa hebel muslim waa saanuu sameeya ma ahan هذا مسلم معنوه ليه ولا أوكي مسلم قارس مركز تاي وحي حلو وحني وحي سن وسان بالكل فيديو جيك يصير وذنه لكن جعلك اسمح كل فاقة وحيابا أنا دينتي نقولن أوكي محويري توهي تجنة ميري هذه الجنة ذي إذا أياتها تو روح كسكون وحتى هاي روح ذي قفك دجلايت أوكي تحسي وحكة ما قبل ضوء مقلسين بابجيكي وحو ليهي هيست waa jacayl been ma laakiin se jacayl ahaan maxaa kulli faaqan ugu yiri ilaan jacayl markay ta jacayl inay taagnaato ma ahan eriga muxuu ka abuuran yahay adiga jacayl waa inaad ahdo ma fiicna mas heesta way macday maxay ka macdaa mas waxaas ina ogaataa muhiim bal fiidiyogaasi wadano wuxuu yiri tuhi tumanat mary qofti aniga aan caabudaya tahay okay wuxuu yiri markii dambe wuu soo batay wuxuu yiri tujimee rab digtaahay yaara me kya karo adigaanba waxaan ku arkaa rabbigayga inaad tahay maxaan sameeyaa sajidee sar jugtaahu adigana waa meesha hadee aan heesta inaan kaga hadalna khaasatan urabnay ahayd sheeruqan gabadhi ahaan asiga jacayl dartiiso macnaha qaabku heesta u qaada waxay tahay jacayl dartiiso naagti markaas uu jeclaayo wuxuu taagan yahay adigaanba ku caabudaaba macnaha adigaan rabbiga ku arka waana taas waxa waa jacayl lama dhihi karo waa waali mase gaalnimo mid ugu xumeed xaqiiq waa maaragtay gaalnimadan aada lagu fiican yahay ilaan markaa muslim tahay oo muslim khaalis tahay waxa mar walba muhiim ah waxay tahay inaa wuxuu markaas ka hadlayo mas qofka walaalkaaga dhibaatadiisa ay tahay inaa mar walba ogaato bal aniga waxaan jeclaa mar walba waxay tahay inaa isbedel laga sameeyo ilaan Soomaaliya aan isku dayana luqadda mase eriga markaas macaankiisa mase naaxiyaha uu kusoo jiidanayo inaadan bedelkeeda aadan ku sii fogaanin ilaan mar walba waxa muhiim ah waxay tahay maanta hadaan wax aqoon leh qof walaalka aqoon u leeyahay jiro Soomaaliya mar walba waxay dileeyahay waxay tahay luqadda markaas ku qaadaysin yeesan idin qancinin macnaha qaab ahaanta mas'ala ahaanta u sameeysan tahay laakiin waxa mar walba isku daydaa waxay tahay waxa ay kaaga iman kara biri dhibaatada keeni karto problemkeen leedahay
بالكل فيديو يعاو ان شاء الله هلكان كسو ختمaya walaalaha ku xiran channelka Cumar Keyo YouTube bilfadlan waxaan ka codsanaa video ana dug soo gar ina share gareyso like to comment inta baa xagaaga walaalka khali ama walaash khali aan ku xiran channelka Cumar Keyo bilfadlan adin waxaan ka codsanaa inaan ku soo biirto team Cumar Keyo oo naga mid noqoto familkeena aan noqoto asxaabteena aan noqoto walaalaheena ama walaasheena wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh